gaashaan la dhaxay Cabdi Cali Saad waxa uu ahaa aabaha 8 caruur ah da'da waxaana la kugu sheegay 50 sano inuu jiray saakay 2 saac ayaa meedkiisa laga helay xiradii uu deganaa oo horey loogu wargeliyay inuu ka guuro amarkan oo dhamaaday shalay ee soo baxay ahaa inuu ka guuro guriga kadib waxa la helay meedkiisa reerkiisa waan la hadalnay waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin inuusan isdilin ee la dilay waxaana la hadashay xaaskiisa magacayga Deeq Axmed baa lahaa waxaan ahay marxuumka meeshaas yaala maamadii islaantii uu qabay xaaskiisii baan ahay carruurtiisii waa kuwaana sargaal booliska buu ahaa oo gaashaan la dhaxa ah meeshaan baanu deganay deegaan ku ahayn waxaana la ku wargeliyay shalay in la yiri dhulku waa la duminayaa maxaad uga bixi weysay wuxuu yiri taliyaan uu meelan aaday meelan aan garanayo ma jirto haddaadan bixin wuxuu yiri waan ka duminayaa dumi yiri tan shaqada kuma qabsanaaye waa la wacay xafiiska waxa laga wacay guud xafiiskii buu tagay waxa lagu yiri soo xukayn baa loo soo dirayaayo guddi baa loo saarinayaayo oo guriga ku laabo xalay 3 saac baan kala seexanay koortii aan seexanay 5 saac ma ka seexanay anaga koortii aan seexanayna saakadan soo baxna 2 saac bar la marayo meedkiisa wax dhexdiisa lagu arkay ciidanku baan tusay meesha jooga waana la dilay qof isagu waalan ama wax cudur qabay midna ma uu aha qaarkoodna waxay magaalada galiyeen ninkan waa laayay mooto ay jugsiisay mooto jugsiisay way jirtaa laakiin ma waaleen wax cudurna ma uusan qabin nin reeriisa dhaqanayo shaqadiisa aadayo dantiisa yaqaan u aha hadda intaasaan social media madaxdu u sheegayna madaxdu way ogtahay wax isdila ma jiraan waa lagu daba joogaa waa la soo wacay waa loo sheegay culayska jirana ilaahay baa garan kara inta uu leeyahay marka wax isdilada lama jiraan waa in la dilo si uu la kaca loo dilay wixii dilana waa lagu daba jiraa waan raadinayaa isaga xalay 3 saac baa telefoon loo soo diray waxa lagu yiri waa lagu dacweynaa isagana waa la dacweynaya waa la xirayaa gurigana waa laga duminaya ilmahan waa lagu leynayaa gurigan iga dambeeyay waa kii amarka koobaad uu ku soo baxay ee ahaa inuu isaga guuro dhammaantii saraakiil isaga lamida ayaa guriyihii laga dumiyay kuwana waa ay ka guureen iyagoo la sheegay markaas inay amarka fulinayeen isagu waxa uu doonayay sidan ay inoo sheegeen ehelkiisu inuu isaga baxo gurigan laakiin waan kale uu kula jiray heshiis taliska booliska laakiin si ugu dambeyn uu geeriyooday baaristu waxa ay ka socotaa CID-da sida naloo sheegay laamaha booliska oo aan xiriir la sameynay ilaa iyo haddana suuragal ma aysan noqon Cali Aadan Muumin goobjoog xerada Sheelare Muqdisho